السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta taariikhdu waxaan u maleynayaa inay tahay sagaalkii bishii sagaalaad 2019. insha allah halkan waxaan rabaa inaan maanta ka duubo fideogaas oo ku socda dadka diinta islaamka ka ridoobay ee dadka diinta islaamka ka baxay haddana duulaanka ku ah aflagaadeynaya diinteena qayimka ah ee wanaagsan ee ilaahay subxaanahu watacaala yiri alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina. alyawma akmaltu lakum diinakum, maantaan diintiina idin kaamilay buu ilaahay yiri subxaanahu watacaala. wa atmamtu calaykum nicmatii, nimcadaydiina waan idin dhammaystiray. wa raditu lakum alislaama diina, waxaan idinka raali noqday diinta islaamka diin ahaan iyo waxaad ilaahay ku caabudaan. maanta waxaad arkaysaa inay aad maalin walba usoo badanayaan gabdhaha aflagaadeynaya diinta islaamka ama nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam, ama dadka diinta ka weecinaya dadka ku baraarujinaya dadka oo ku tashjiicinaya waxyaabaha xishood la-aanta ah, waxyaabaha diin la-aanta ah, waxyaabaha dhaqan xumada ah, waxyaabaha aynan diinteena islaamka iyo dhaqanka saliimka ah aan ku lahayn raadkii salka. waxaa jira qofka bini aadanka ah haddaadan xishooneyn, idaa lam tastaxyi fasnac maa shi't, hadduu yahay qofku qof aan xishooneynin oo ilaahayna ka xishooneynin, addoommadiisana ka xishooneynin, wuxuu rabo ku hadlaa, wuxuu rabana dadka wuu sheegaa. waxaan rabaa inaan la hadlo gabdhaha Soomaaliyeed ee diinta ka baxay, ee diinta aan haysan, ama kuwooda diinta sheeganaya laakiin diinta duulaanka ku ah. diintan horta ilaahay baa ilaashanaya subxaanahu watacaala, isagaana mas-uul ka ah, isagaana wakiil ka ah, isagaana ilaahay subxaanahu watacaala ballan qaaday inuu ilaahay diintiisa ilaashado. waxaan ku leeyahay adiga Soomaaliga ah oo Soomaaliyadda ah, haddaad diinta islaamka ka baxday, ha ku deeqdo diintii aad qaadatay, diinta islaamka aad ka doorbiday ha ku deeqdo. waxaan rabaa inaan kuu sheego, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yiri walaqad karamnaa bani aadama, ilaahay wuxuu dhahay insaanka ama bini aadamka waan karaameynay. ilaahay baa ku karaameeyey, karaamadu ilaahay ku siiyey mid ka wanaagsan gaal kuma siinayo. ilaahay hooyuu kaa dhigay, wuxuu kaa dhigay gabar hooyo ah. ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala kugu karaameeyey inuu suurad qur-aanka ka mid ah oo suuratu nisaa ilaahay uu bixiyey suuraddii dumarka. ma jirto suuratu rijaal suurad la dhaho qur-aanka kuma jirto. ilaahay karaamada iyo sharaftii qiimaha uu ku gaarsiiyey iyo diintiisa islaamku, ilaahay wuxuu suurad qur-aanka ka mid ah ayuu adiga kuugu magac daro yiri suuratu nisaa. ilaahay subxaanahu watacaala karaamada kale uu ku siiyey oon raba inaan ku xasuusiyo, meel aan karaama jirin baad karaamo ka raadinaysaa, gaal baad karaamo ka raadinaysaa, laakiin karaamada ilaahay ku siiyey oo aadan garanayn waxay tahay inuu allah subxaanahu watacaala adiga 3 mar xaqii ku siiyey. uu yiri ummaka, markii dambe oo afraad uu yiri abuuka. markii ninkii saxaabiga ahaa radiallahu canhu, magaciisa hadda ma xasuusto, uu weydiiyey nabiga sallallahu calayhi wasallam, yaan dadka ugu macaamiladeeda ugu wanaajiyaa oon ugu hagaajiyaa macaamiladeeda. uu nabigu dhahay sallallahu calayhi wasallam ummuk uma abuuk. 3 mar markuu hooyadii yiri oo adiga gabara ilaahay ku karaameeyey, buu ilaahay markii afraad rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam uu yiri abuuk. karaamada kaloo aadan garanaynin oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku karaameeyey waxay tahay inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu jannadii lugahaaga geliyey. uu rasuulku dhahay sallallahu calayhi wasallam, jannadu waxay ku jirtaa lagaha hooyada. qof walba oo hooyadii adduunka ku soo gaara oo baari u sameeya baarinimo oo lugaheeda ma aragtay jannada ka raadiya, ilaahay subxaanahu watacaala sida looga rajeynayo janno u galaya. ilaahay aayad qur'aan, suurad qur'aan oo ilaahay kugu magacaabo adiga kugu sameeyo yiri suuratu nisaa. 2 ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku siiyey fadli 3 mar inaad xaqi leedahay. 3 ilaahay wuxuu ku siiyey fadli ay inuu lugahaagi jannada geliyey. intaas oo wanaag oo ilaahay subxaanahu watacaala kuu galay
oo ilaahay kuu galay gaal kuma siinin, allah ku siiyey subxaanahu watacaala, qur-aankiisuna kugu siiyey. okay, qabla alislaam, islaamka ka hor gabdhaha maxaa lagu samayn jiray? waa la xabaal nololin jiray, ayagoo nool baa la aasi jiray. cumar bin khadaab baan jeclahay inuu ahaa saxaabigii uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku yiri, rasuulka ilaahayow weli waxaan dhagahaygu sii maqlan gabadhaydii oo dhahaysa aabbow dayactay amaanada, yaa abuu aabbow dayactay amaanada, aabbow dayactay amaanada. ma aragtay aabbow waa dayacday amaanadii ilaahay kuu dhiibay. markuu xabaal nololiyey wuxuu dhahay waan sii maqlayay. marka waqtigii islaamka ka hor ee aan diinta islaamka ilaahay soo dejin waa lagu xabaal nololin jiray, oon adoo nool baa lagu aasi jiray. intaas oo karaama hadduu islaamku ku siiyey, hadduu hooyo kaa dhigay, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku yiri dumarka muslimiinta ah, waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa. ilaahay wuxuu dhahay guryihiina jooga, wuxuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waqarna fii buyuutikunna, guryihiina jooga, walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa, hawbanaan bixnina, hawban bixnina sidii jaahiliyadii hore. okay, ilaahay markuu ku yiri gurigaaga joog, xigmad baa ku jirta. allah subxaanahu watacaala qur-aankiisa kariimka ah iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam wax ma ahan ciyaar ah. wax walba oo ilaahay subxaanahu watacaala diinteenna iyo nolosheenna adduunka ah, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yiri maa faradnaa filkitaabi min shay. ilaahay kitaabka waxba kamuu tegin. markuu ilaahay ku yiri gurigaaga joog, maslaxadaadaa ku jirta, fidmadaad ka nabadgelaysaa, sharkaad ka nabadgelaysaa, waxaa tahay qof asturan ku asturan gurigeeda. okay, markuu ilaahay subxaanahu watacaala ku yiri xijaabo oo is astur, ilaahay wuu ku karaameeyey. allah subxaanahu watacaala wuxuu kugu karaameeyey. ilaahay wuxuu yiri yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihinna dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn. bal fiiri haddaba aayaddaas in yar fiiri oo ila fiiri aayaddaas. ilaahay wuxuu yiri nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, ilaahay waxyigiisa kusoo dhiibay, wuxuu ilaahay nebigiisa ku yiri yaa ayuha nabiyu, nebigaan la soo diray oo qul liazwaajika, dumarkaaga waxaad ku tiraahdaa, wa banaatika iyo gabdhahaaga, iyo wa banaati lmuslimiin gabdhaha muslimiinta ah, yudniina ka raariciya calayhina min jalaabiibihinna, dharkooda isku asturayaan, jirkooda ka raariciin ha isku asturaan. daalika arrintaas waxay markaa sabab u noqonaysaa, daalika adnaa waxay u dhowdo sabab u noqonaysaa an yucrafna in la garto falaa yu'dayn aan la dhibin. haddaad tahay gabar mutaxajabad ah, ilaahay baa ku ilaalinaya. haddaad tahay gabar ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa xijaaban oo ku asturan, ilaahay baa ku ilaalinaya. markuu ilaahay subxaanahu watacaala xijaabka kuu soo dejiyey, ilaahay wuu ku karaameeyey. ilaahay markuu ku yiri waqarna fii buyuutikunna, ilaahay wuu ku karaameeyey. maanta waa kuwaa gabdhihii reer westrenku banaanka taagan, maxay ka dhaxleen? dhibaatay ka dhaxleen, debareeshan bay ka dhaxleen, stress bay ka dhaxleen, rafaad bay ka dhaxleen. waxaa la yiri wax walboo ninku qabto waa qaban kartaa. dhib badan baa gabdhihii kala soo kulmay. okay, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kugu karaameeyey in ilaahay subxaanahu watacaala farjigaaga markii nin xalaashado oo ninku guursaday inuu ilaahay meher kuugu ilaahay subxaanahu watacaala uu yiri siiya dumarka aatu nisaa saduqaatihina nixla. ilaahay uu yiri subxaanahu watacaala dumarka meherkooda siiya. ilaahay wuxuu kugu karaameeyey inuu yiri ilaahay subxaanahu watacaala haddaad wax walba dumarka siisaan, markaad kala tagtaan ha ka ceshanina. marka meherka ilaahay subxaanahu watacaala markuu meher ku siiyey, micnaheedu maaha inaad islayf tahay, micnaheeduna maaha inaad tahay qof bini aadan ka hooseeya, laakiin ilaahay wuu ku karaameeyey. wuxuu kugu karaameeyey farjigaagii in lagu xalaashado, in ilaahay subxaanahu watacaala aad tahay qof gabar muslimad ah. okay, mowduucan waa mowduuc aada u guda ballaaran. waxaan rabaa inaan dhaho gabdhaha nan muslimka ah, haddaad ka baxdeen diinta islaamka, diintaa doontiin baqaato oo taayada noo daaya. bilaahi calaykum, kolayba u malaymaayo hadduu iimaan jiro ama alla ka cabsi jiro, dee intaasaad garan lahaydeenoo dadka diimaha kale ka baxay, diinta islaamka soo galay oo diimaha kale ka soo baxay, diinta islaamka diimahoodii hore wax kama sheegaan, mana caayaan, mana ceebeeyaan, waxna uma geystaan. wuxuuna dhahay rasuulka sallallahu calayhi wasallam, ha caayina diimaha, haddaad diin caysa diintaadaa la caynaya. ilaahiyada dadku caabudaan ha caayina, haddaa caydaan ilaah weyn baa la caynaya. marka waxaan idin leeyahay, waan kusoo gabagabaynayaa fideogan wuu dheeraaday. walaalayaal ilaahay ka baqa,
ilaahay usoo noqda karaamo iyo sharaf iyo cizi aa islaamka ka weyday kama helaysa diin kale karaamo iyo sharaf iyo cizi allihii ku abuuray uu kuu gartay baad haysataa marka insha allah walaalo dib u fiiri karaamada iyo ciziga ilaahay ku siiyey haddii ay arrintaadu tahay waxa weeye adduunyaan raadinaya ood ku iibsanaysid adduunyo aakhiradaadiina hadda anagu waxba kama qaban karno laakiin waxaan leeyahay hale iska daaya gabdhaha dhallinyarada ah oo yiri ilaahay subxaana watacaala hadalkooda fiican hala fiiriyo hadalkooda wanaagsan hala fiiriyo dhinaca turxaanta le iyo dhinaca xunyaan hadalka laga fiirinin waxaan leeyahay anigu waxaan u taaganahay inaan diinta ilaahay difaaco qowlan wa ficlan hadal iyo ficilba inaan ku difaaco waxaan ka difaacayaa qof kasta oo maangaab ah oo laa diini ah oo aan diin lahayn oo diinta islaamka duulaan ku ah waa anigoo ah xafsa muuse nuux aka faadumo cali oo idin salaamaysa oo idinla maalintii waqtigaad joogtaan baha idin wacnaado